xaflad loogu talagalay furitaanka sana dugsiyeedka cusub ee maxadka Al-Furqaan ee magaalada Burco isla markaana abaalmarin lagu guddoonsiinayay ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaankii sana dugsiyeedka kana soo qayb galeen maamulka dugsiga madaxda waxbarashada culimaawdiin iyo martirsharaf badan ayaa lagu qabtay hotel Deero ee magaalada Burco maamulaha maxadka Al-Furqaan ee magaalada Burco Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan oo go'aan halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri waxaanu halkan maanta u fadhinaa furitaankeed maxadka Al-Furqaan qadiyada labaad ee ku saabsantay waxa weeye ardaydii sanadkan ka baxday ee ka qalin jabisay dugsigan Al-Furqaan oo dufcadii koowaad ah inaanu iyadana halkan shahaadooyin aanu ku guddoonsiino waa hadafka labaad aanu xafladan aanu ka lahayn weey dugsiga Al-Furqaan haddaan wax yar taariikhdiisa aan dib ugaga laabto waxa uu furmay bishii 11aad ee sanadkii 2013 waxaanu ka bilaabmay xarumo kala duwan oo qaarna ay iska leeyihiin dumarku qaarna ay rag leeyihiin waxa uu sanadkan ku soo kordhiyay dugsiga Al-Furqaan kamid ah qayb loo yaqaano barashada luqadda Carabiga oo gaar ah maxadka waxa aasaasay ardaydii ka baxday jaamacadda Burco dafcaadkeedii kala duwanaa jaamac Cabdilaahi oo kamid ah madaxda waxbarashada gobolka Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Raage iyo Sheekh Cali Warsame oo iyaguna ka hadlay xafladaasi ayaa waxa kamid ah hadaladoodii baritaydii kuna mujtamaca wax ka bedeli lahaa sidoo kale ku dayan lahaa ayaa tihiin waxaan rajaynaynaa in aqoontaas ay halkii loogu talagalay ay gaadho ana leeyahay mas'uuliyad baa in saaran ragga soo baxay iyo dumarka soo baxay labadaba oo idinka saaran mujtamaciina ina u sii gudbisaan cilmiga barateen idina markaa ku intifaacadaan waxaan baliyaynayaa ragii maxaan aasaasay macadkan aasaasay oo himo iyo casiimo ay leeyihiin ilaahay siiyay ama ay u qastiyeen ku aasaasay ilaahayna la qabtay sidii ku dhameeyay in si ballaaran loo soo agaasimay ayaa waxa kale oo ka hadlay waalidiin mas'uuliyiin iyo waxgarad badan kuwaas oo dhamaantood uga mahad celiyay maamulka dugsiga heerka wacan ee uu gaadhay gabadhii xafladan ayaa abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore gashay Axmed Dagaale Home Cable TV Burco.